kadib canshuurihii Trump uu ku soo rogay wadamada Mexico, Canada iyo Shiinaha waxaa ka soo baxay akhbaar cusub oo la xiriirta canshuurahaasi qaybo ka mid ah laga laabtay. Waa kuwii canshuuraha laga laabtay wuxuuse Trump ku bedeshay qayb ka mid ah. Sidoo kale canshuurahaas waxaa ka yimid argudasho aad u xanuun badan oo Mareykanka laga yaabo in saameyn xooggan ku yeelato wax soo saarkiisa iyo ganacsigiisa. Waa kuwa argudashadaasi ay ka yimaadeen. daawada barnaamijkan ayaan kaga hadli doona qodobkaasi. haddii aad nagu cusub tahay YouTube-keena iyo Facebook-keena ku soo biir. haddii hore noola joogta like share noo saar. aan ku bilownay Trump wuxuu canshuuro hore ugu soo rogay wadamada dariska la ah sida Mexico iyo Canada. sidoo kale Shiinaha ayaa canshuuro lagu soo rogay. akhbaar cusub ayaa ka timid oo Trump wuxuu mar kale ku dhawaaqay inuu joojiyo canshuurihii Mexico iyo Canada uu hore ugu soo rogay. hase ahaatee wuxuu ku bedeshay waxyaabo kaleeto oo Canada iyo Mexico looga bedeshay. madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay inuu la hadlay hogaamiyaasha wadamadaas sida hogaamiyaha wadanka Mexico Claudia Sheinbaum iyo si lamid ah hogaamiyaha dalka Canada Justin Trudeau. Mexico ayuu sheegay inay ka wada hadleen madaxweynaha dalkaas si loo xaqiijin lahaa xuduudka labada wadan ka dhaxeeya inay ku heshiiyeen in 10,000 oo ciidamada dalka Mexico lagu soo daadiyo xuduudka labada wadan kala qaybiya si loo joojiyo muhaajiriinta dalka Mexico ka soo gasha Mareykanka. taas ayuuna sheegay inuu bedel uga dhigay in canshuurihii hore ugu soo rogay uu ka joojiyo badeecada wadanka Mexico ka timaada. muddo badan Mexico ayuu ku cadaadinayay in muhaajiriinta dalkeeda ka soo gasha Mareykanka ay tahay in ayagu ay joojiyaan kana hortagaan si ayna wadanka Mareykanka u soo gaaranba guud ahaan muhaajiriintaasi. Trump wuxuu sidoo kale wada qorshayaal kaleeto oo muhaajiriinta looga hortagayo ay ka mid tahay in xabsigii Guantanamo Bay ee gacan Kuuba ku yaal dib loo dhiso si muhaajiriinta halkaasi loogu xiro. waxayna noqon kartaa cabsigelin xooggan oo kaleeto. qodobkaas barnaamij kale oo ka sameynay ayaa ku jira Facebook iyo YouTube-ka, labadaba aad ka heli kartaa. dhanka Canada sidoo kale wuxuu sheegay Trump inuu la hadlay wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayna ka wada hadleen xaaladda xuduudka iyo sidii lagu joojin lahaa daroogo. uu sheegay in dalka Mexico laga soo geliyay Mareykanka, taasoo ku tilmaamay in 10,000 oo Mareykan sanad kasta ay ku dhintaan, sidoo kaleeto qoysas Mareykan ay ku burburaan, bulshada Mareykanka ay dhibaato xooggan ku yihiin. Canada ayuu sheegay ra'iisul wasaarahooda inuu kala hadlay joojinta daroogadaasi Canada laga soo dhoofiyo oo la soo geliyo dalka Mareykanka. wadahadalkaas kadibna warbaahintu waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Canada Justin Trudeau ku dhawaaqay qorshe 1.3 bilyan oo dhaqaalaha loogu bixinayo ilaalinta xuduudka Mareykanka iyo Mexico ka dhaxaysa. Mareykanka iyo Mexico badanaa kama soo gasho muhaajiriin oo Mexico ka timaada. saacadii Mareykanka ayaa muhaajiriintu dhexmaraan oo Mexico u gudbaan. Trump laakiin wuxuu sheegayaa in daroogo laga soo gudbiyo dalka Mexico loona soo gudbiyo Mareykanka, taasina ay dhibaato xooggan ku tahay nolosha dadka Mareykanka. marka laga yimaado joojinta canshuuraha lagu soo rogay wadamada Mexico iyo Canada, hadda Trump ku dhawaaqay inuu joojiyay waxyaabaha kaleetan uu ku bedeshay. haddana wuxuu sheegay in si rasmi ah loo joojin oo muddo hal bila la hakin doono. waxayna u egtahay haddii muddadaasi bilka waxyaabaha ay ku heshiiyeen labadaasi wadan madaxdooda ay shaqeeyaan in sidii loogu talagalay canshuurta loo wada joojin doono. haddii ay shaqeyn waayaan canshuurtaasi la soo rogi doono. labada wadan laftigooda waxay Mareykanka ku soo rogeen canshuuro badeecooyinka ka taga Mareykanka ee wadamadaasi gaara, waana wadamo derisa oo markasta culaysku uu mid kaleeto uu fuuli doono. Shiinaha oo markii hore aan iyagu jawaab culus uga bixin sheegay inay ka dacwoon doonaan Mareykanka canshuuraha ku soo rogay ayaa moodaa markaan inay argudasho xooggan ay ku sameeyaan dalka Mareykanka. badeecooyinka ka taga dalka Mareykanka ee gaara Shiinaha ayaa la sheegay in Shiinuhu ay ku soo rogeen 15% canshuura, taas oo dheeri ku noqonaysa 10 Febraayo dhaqan gali doonta. sidoo kale waxyaabaha Shiinuhu soo saaraan ee Mareykanka loo soo dhoofiyo kadibna ay ka faa'iideystaan warshadaha Mareykanka ayaa canshuuro lagu soo rogay si badeecadaas iyagana loogu qaaliyeeyo. agabka ay ku shaqeeyaan warshadaha Mareykanka sidoo kale gaaska ay ka mid yihiin ayaa la canshuuray oo lagu soo rogay 10% dheeriya, taasoo keeni karta in warshadaha Mareykanka badeecooyinka ay soo saarayaan ay qaali ku noqdaan ama ay heli waayaan meel kaleeto ka bedelan Shiinaha oo ay wax ka soo qaataan. Shiinaha badeecooyinka oo canshuuraha saaray oo isugu jira kuwa Shiinaha ka yimaada iyo kuwa Mareykanka ka yimaada waxaa moodaa in muddo ay u fakareen. sidoo kaleetana waxay Shiinaysku ay sheegeen in argudashada sii xoojin doonaan haddii Trump aanu joojin canshuuraha ku soo rogayo. Trump dhankiisa wuxuu sheegay in Shiinaha uu la hadli doono qorshayaasha labada wadanna ay ka wada hadli doonaan hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping iyo si lamid ah Trump. inkastoo Trump waxa uu wada ay tahay inuu xoojiyo dhaqaalaha Mareykanka kuna xoojiyo Mareykanka dhexdiisa ee aanu dibadda kaleeto
badana uuna xooga saarin. haddana waxaa moodaa marka koobaad maadaama dadka Mareykanka ay ku tiirsan yihiin alaabooyin iyo waxyaabo ka yimaada dalka dibadiisa oo ama warshaduhu ay wax ka soo saaraan ama sidoo kale lagu iibiyo gudaha Mareykanka, waxaa u moodaa in canshuurtaasi ay u keeni karto culays badan shacabka Mareykanka. wadamada aan horumarsanayn marka ay horumar sameynayaan way ku fiican tahay canshuuraha ay saaraan waxyaabaha dibadda ka imaanaya si loo horumariyo wax soo saarka gudaha dadka guduhuna ay u isticmaalaan sida Soomaaliya oo kale. laakiin wadan horumarsan oo mar horeetaba wixii gudihiisa u yaalay ka faa'iideystay badankeeda ganacsiga uu dibadda la leeyahay waa mid aad u xoogan. hadduu galo dagaalkaasi ganacsi dhibaatada xoogan asaga ayay ka soo gaartaa.